saxardiid cali nuur xaashi oo ka mid ah hal abuurka reer Somaliland iyadoo aan jecelahay bal hadda inaynu toddobaadkan aan aad uga sheekeyno dhanka dhaqanka isbedelada ku yimid dhaqankii hore sidii ahaan jiray macalinka dhaqanka tix aad uga magac dartay macalinka dhaqanka ilaa waxa tirisay waqtigeedii waxaan tiriyay 2002 marka macalinka dhaqankan u bixiyay waxay wana maanso waxay ka sheekeynaysaa sida dhaqan guurkeena ugu dhacay waaye dadkeena sidoo isku rogo waaye wax dhimaganaysaa wax qabadkeena iyo waxeena iyo dhan saa looga tagay hidaheena iyo dhar xirashadeena sida looga tagay cuntadeena iyo magaranaysaa aqaladeena sida looga tagay ay ka sheekeynaysaa hab nololeedka dhaqaneed marka waa dib u milicsi in dhaqankii maaragtay dib loogu noqdo wixii dadku ay ku soo dhaqmayeen boorka laga jafo dib loogu noqdo dadku ay ku dhaqmaan maxaa ku dhaliyay waqtiga marka waxay ku dhaliyay markaan arkay markii dibadda loo dhoofay dhalinyar badan dad fara badan oo xagga ku dhaqmay oo af Soomaaliga ba garanay oo dhaqankiiba garanay aan arkay ayaan marka waxaan yiri inta dhoof ku maqanaan ciidooda ku badhalan dhalintaan la barinay ku dhayalsanayaan macnihiisa dhaadeen duruus baan u dhigaya dhaqan waa hab nololeed waalid laga dhaxlo si kastaba u dhigano ummad waliba dhowrto dhulka loogu noolo dhismihiisa guudnimo ma dhamayn karayno dhayal laguma gaadhay dhud yaran ka sheege dhagihiin ay fura markay tahay dhar xidhashada aynu keeni dhuganne mara dhuuxa ka caado 3 qaydi laga dhigay xir daraya muuse subeeciyad dalaalweyn dhowr midab isugu jira boqorkiya dhacal heedoogi la xidhan jiray dhinac kale haddaan tayo xoolahaynu dhaqaneed tir dhaxaadka nolosha ari subaga laga dhuro looda dhayda laga liso geel karuurka laga dhamo dameeraha la dhaansado farda orodka dheeray dhinac kale haddaan dayo dhuunigii la cunaya dhacaanka badin jiray cunto dheeli tiranoo fiitamiina dhowr iyo nafaqadu dhammaystahay dhul fogaan ka soo degin dhiigyo laftaba korin waa dheefteena xoolaha iyo dhulka wixii ka bixi jiray dhinac kale haddaan dayo dhirtu waa muhiimade kuwa dhuxusha laga shido ama dheesha laga qoro ama maydhax laga dhigo ama aqalka laga dhigo dhowra ka soo xulo dhebigiyo galoolkiyo dhamastiyo maraagiyo kidi dhuuxa weyliyo sogsog maydhax laga dhigo dhaloosha iyo quraci iyo qaar kaloo dhima dhinac kale haddaan dayo dhismihii la geli jiray aqal Soomaali dhag ahoo dhaqaalaha ku wacanoo walxahay ka dhigayeen cawskii dhulkeena dhirta laga samayn jiray waxaan soo madaynayn dhibcuna ma geli jirin qorraxduna ma dhaafayn dhinacaadu guurtaba iyadoon dhibaatiyo hawl badan kugu dhicin ayuu kuu dhalmari jiray dhinac kale haddaan tayo weelkii dhirteen iyo dhoobo laga samayn jiray dhiisheenna caanaha iyo dhorihii la dari jiray dherigii malaasnaa qodihii dhex mari jiray xeedhadii dhexweyn iyo bandhaalkii dhex yeelaa dhiilkii cugnaa iyo markahay ku dhigayeen dhinac kale haddaan tayo dhadig iyo labood guurkii dhex mari jiray sahanaadu dheer baa dhulka lagu marmari jiray haasawa dhumuc weyn ayaa lamaanaha dhex mari jiray inantii dheg iyo qurux dhaayihiisa deeqdu waalidkii ku dhalin jiray guurtii labada dhinacaa hibadooy dhammeeyaan yaradkoo la dhiibiyo arrimaha dhammayn jiray dhinac kale haddaan tayo dhalinyaradu fiidkii dhaanis lama aqoonina ciyaaraha dhulkooday barxad aan dhoweyn oo reeraha ka dheerayn dhididka la iska tiri jiray dhaantada la tumaya saylici la dhugaya walasaqa la dheeliya batar lagu dhawaaqaya dhiga maanta joogow dadkii hore wuxuu dhigay dhabadoodii raaco hidahaga dhaqankeeni dhinac kale haddaan tayo magac dhaqan ayaa jiray qofka dhalashadiisa iyo dhacdada loo bixin jiray dheeg baa la oran jiray dhuuxaana garab tiir dhimbiil baa la oran jiray dhool baana garab tiir dhamac baa la oran jiray dhiblaana garab tiir waa sumad inoo dhigan dadka kaleba dheernahay waa inaan dhowrno kuwa kale la garab dhigin dhinac kale haddaan dayo khilaafyada dhexdooda sidii loo dhammayn jiray dhagar baa u weynay odayaal dhexaada beelaha dhex geli jiray waxay dhirin dhireeyaa nabad baa la dhigi jiray kafankoo la dhiibiyo dhiigoo la bixiya dhibta lagu xaliili jiray hadday dhaawac noqotona dhakhtar laysu geeyiyo dheef laysa siiyaa dhibta lagu xaliili jiray waxyaabaha intaa dheer heshiis labada dhinac iyo xeer soo dhignaaba dhibta lagu xaliili jiray waxba yaan ku dheeraan
Soomaaliya dhammaanteen dhalinyaro waayeel intaynaan isdhalan rogin daldalaalka beenta iyo dhaqan shisheeye kula tegin sharafteenu dheeliyin waa dhaxal qadiimiye midkii aad u dhalatiyo dhaqankiina qaato dhalintiina bara oo dugsiyada ha lagu dhigo